haddii aad cunto badan xilliga habeenkii kadibna aad ku jiifato si joogto ah maxaa iska bedelayo caafimaadka jirkaada waxaan kula wadaagi doonaa 6 dhibaato oo aad kala kulmi karto ama isku arki karto haddii aad tahay dadka sida joogtada ah cashada faraha badan leh u cuno ama cuna habeenkii xilli dambe waxaa suurtagal ah inaad isku aragtay calaamadahan balse aad u malayso inay kaaga yimaadeen xanuuno kale mar walbana isbitaal aado si lagaaga daaweeyo 6daas dhibaato ee aad ka dhaxashay cunista cashada faraha badan ama xilli dambe aad cunayso balse waxay gelinta bulshadeena oo aad u yar darteed waxaa suurtagal ah inaadan ku baraarugsaneyn dhibaatooyinkan ila dhamayso muuqaalka si aan si faahfaahsan kugu sharxo 6dan dhibaato lana wadaaga asxaabtaada oo qaarkood laga yaabo inay la dhiban yihiin si ay kula faa'iidaystaan magacaygu waa Dr. Cabdirasaaq soo dhawaada mar kale xubnaha kala duwan ee jirkeena oo ugu horeeya dheefshiidka markii la gaaro xilliga habeenkii ama qofka marka uu nasanayo ama uu jiifanayo waxaa hoos u dhacay metabolismka ama shaqadoodii burburintii wax la mid ah si aad ay hoos ugu dhacdaa sida hortiina ku qoran marka haddii qofka xilligaas uu cuno casho fara badan oo yacni todobada fiidnimo sida cilmi baarisada inta badan ay sheegaan wixii ka dambeeya hadduu qofka cunto fara badan oo cuno gaar ahaan waxyaabahan dufinka leh sida bariiska iyo baastada iyo wax la mid ah haddii qofka uu cuno biyo badan iyo wax la midna uu ka daba cabo kadibna uu ku jiifto waxaa ka dhalanayo ama wuxuu qofka dhaxlayaa ama uu isku arkayaa todobadan xaaladood kow waxa waaye qofka in dheefshiidkiisii oo qalqala ama oo qaldamo oo qofka inuu dareemo dibriyo iyo wax la mid ah yani calooshii inaysan soconayn sida hortiina uu ku qornaa arkaysaan oo qofka calooshii xanuun oo ka dareemo dibriyo oo dareemo maadaama dheefshiidka xilliga habeenkii shaqadiisa ay aad u yar tahay waxaa dhacaya cuntadii inaan si degdeg ah loo burburin ama calooshii ay ku daahday ayaa dhacayso taasoo caafimaad ahaan aan wanaagsaneyn marka insha Allah waa sharxi doonaa yani cuntada ay tahay inaad qaadato xilliga habeenkii waxaan lagu ogolay qaybta gadaal aan ku sharxi doonaa insha Allah labo dhibaatada qofka isku arkaya waxa kamid ah sida hortiina uu ku qoran acidity-ga ama aashitadii inay ziyaado qofka oo isku arka laabjeex fara badan oo boga ama xabadkii wax la mid ah hur inuu ka dareemo korku inuu hur ka dareemo oo din iyo wax la mid inuu dareemo calooshii gubashii wax la mid inuu ka dareemo sabab la xiriira cashadaas faraha badan leh oo habeenkii cunaayo saddex dadka qaar waxay isku arkaa ama lagu arkaa madax xanuun yani maalintii inaad isku aragto haddii aad tahay dadka habeenkii cashada sida aadka u cuno xilliga dambe habeenkiina cuno waxyaabahan dufinka leh bariiskii baasada wax la midna aad u cuno يعني qofka maalintii madax xanuun iyo wax la mid ah isku arkaya sida hortiina uu ku qoran afar waxa waaye qofka in hurdadiisii ay qalqal gasho oo hurdadiisii fiican ugu ladi waayo oo subax markuu soo kaco inuu dareemo qofka caajis iyo wax la mid ah maadaama yani cunto fara badan calooshii oo geliyay dheefshiidkiina shaqo adag oo u diray qofka yani hurdada inuu si fiican ugu ladin ama inuu hurdadii ka dhargin ayuu dareemayaa oo qofka soo caajis iyo jirgo fara badan dareemayo ka soo kacaya sida hortiina uu ku qoran marka inta badan waa aragtaa qofka markuu habeenka casho cunin subax soo fircoon ayuu soo kacaya markuu cunto fara badan cunana culays fara badan ayuu dareemayaa shan waxa waaye yani qofka in stress iyo niyad fara badan yani oo dareemo haddii aad dadka cashada culus habeenkii cuno oo sida arkaysaan yani cilmi baarisada hortiina ku qoran sida lagu cadeeyo ama lagu sharxay marka haddii aad dareento stresskaada inuu fara badan yahay ama niyadkaada wax la mid ah oo diiqa badan ama ciriiri badan aad dareemayso aana tahay dadka cashada aad ku cuno iska yareey oo sida cilmi baarisada hortiina ay cadeynayaan waxay saameyn xoog leh ku leedahay cashada faraha badan leh oo xilliga dambe qofka habeenka uu cunaayo yani moodkiisa ama xaaladiisa sida inuu niyad dareemo inuu walwal iyo wax la mid inuu stress fara badan dareemo wax la mid ay saameyn xoogan ku leedahay oo xiriir ayaa ka dhaxeeya marka waxa wanaagsan yani inaad iska ilaaliso cunista cashada faraha badan leh xilliga habeenkii lix waxa waaye qofka in miisaankiisa uu ziyaado oo haddii aad dadka xilli dambe yani aad cuntada yani u cuno maadaama cuntadii aadan ku shaqaynaynin oo yani jirka uu yani qofka uu jiifo wax shaqo uu qabanaynin si xeer ahaan ama cadiin ahaan ayaa loo keedinayaa taasoo qofka miisaan badan ku darayso marka waxaa wanaagsan qofka todobada fiidnimo wixii ka dambeeya ama hal saac habeenimo qof soo u yaqaan wixii ka dambeeya inuusan cunto cunin haddii aad cunaysana wax qudaar iyo ama yani wax la mid ah inaad cunto
laakiin cunto haddaa cunayso waxaa fiican todobada fiidnimo wixii ka horeeya inaa cunto waxaana fiican inta badan inaa cunto waxyaabahan fibriska leh cuntooyinka qolofta leh sida digirta iyo galleyda iyo masagada iyo misirta wax lamid ayaa wanaagsan habeenka casho inaa ka dhigato bulshadeennu way u badan yihiin cuntooyinka waana cuntooyin aada u fiican marka loo barbar dhigo waxyaabahan yacni u baahan shaqada faraha badan leh jirka inuu ka qabto sida bariiskii baastada marka loo barbar dhigo kuwan kale ayaa ka wanaagsan oo xitaa yacni dheefshiidkii yacni u wanaagsan oo qofkii cuntooyinkaas markuu cuno calooshiisa aad ayay u soconaysaa laakiin markay bariis iyo baasti wax lamid ah ku jiifato dheefshiidka xitaa wuu istaagayaa oo qofka dibri iyo wax lamid iyo daac qurun iyo yacni gaas iyo laab jeex iyo laab olol iyo caloosh inuu xanuunka dareemay aari inuu ku dhex wareegsatay wax fara badan oo dareemay oo dheefshiidka dhan ayaa khaldamayo marka ma wanaagsana todobada fiidnimo wixii ka dambeeya biyo fara badan inaa cabto ma wanaagsana oo waa qalad يعني حتى كليه يعني شقدوda aad ay u soo yaraanaysaa xilliga habeenkii oo jirka sida maskax ahaan iyo jir ahaan ugu baahan tahay inaad nasato ayay xubnaha kala duwan jirkaadan ugu baahan yihiin inay nasiina helaan markii aad fahanteen ayaa rajaynayaa marka haddii aad dadka cashada faraha badan la cuno calaamadahan isku arkay fadlan ka taxadar oo iska jooji insha Allah taala cashan soo koobeena. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.